sheegaya waxaad ogaataan Soomaaliyeed wali inaga isdulmayna sababtoo ah wali waxay taagan tahay wareehba la waa inay madaxweynaha qaataan reehba la ku xigeen qaataan dad aan ku hamiyeen waa inay madaxweyne noqdaan dad aan hadda ku hamiyeen waa inaan gaarno inay madaxweyne noqdaan oo tusaale ahaan ninka gabooyaha ee degan qabridaha ama dhagax buur ama wardheer ama jigjiga ee laga yaabo maanta inuu ka qoostay inuu madaxweyne noqdo waa inaan gaarsiinay inuu ku hamiyo inuu madaxweyne noqdo laakiin reehba baa kale ogaadeen baa badan madaxweyne ciisa ku xigeen noqon kana hebela waxa waa inaan ka gudubno islaam baan nahay bini aadam dadkaas waliba dhibaatada ugu badan iyo cuqubada inagu badan ee inagu dhacday dadkaas ay ka timid haweenkeena way ka timid haweenkeena tusaale baan idin anigu yaraman miyiga ka tagay laakiin hadda intaan jawaabta wax badan ka bartay reer miyigeena waxa laga yaabaa qoys baa ducaysan waxa la oran reebel baa ducaystay neef baa la qali shan inoo reerka joogto xoog badan baa loo haweenkii neef bay qalayaan dhiig maanta dhagu way karinayaan way gubanayaan way geedaynayaan way isku darayaan saxni baa lagu ridin inta loo kala gooyo waa loo geyn afartoodii inta la faano dhameystaan meel la fi caruurtii iyo haweenkii oo gaajo ugu halkan ay taagan yihiin xukuumadda ugu badan taas ay ka dhacday wabillahi tawfiiq wa mahad